بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة إنما تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. waxaan halkan ka salaameynaa dhammaan walaalaha muslimiinta meel ay joogaanbo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan codsanaynaa oo dhammaan muslimiinta codkeena uu gaari doona biidnillaahi tacaala ka codsanaynaa barnaamij aan horey ugu bandhignay oo ahaa gadida madaraso qur-aanka lagu barto dhul loo iibinhayo ayaa weli qabyo ah oon dhammaystirmin. saa waxaan codsanaynaa marka qiimihii aynu sheegnay ee u dambeeyey waxaan sheegnay lacag 500 ah inay dhiman tahay. lacagta iyada ahayd waynu u baahannahay sifo dhulkii aan ugu guulaysano. kadaalika waxaan kaloo u baahannahay haddii la gado dhismihii bilowgiisa ciddii ka qayb qaadan karto inay iyada lafteeda ay ka mushaarakayso iyadana waan codsanaynaa. nabigeena wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalama dadkiina buko sadaqada ku daweeya saasuu yidhi. sadaqada waxyaalaha qofka uu ku caafimaado ayay ka mid tahay weeye oo kurbooyinka looga faydo. sadaqadu waa waxyaalaha qofka uu harsanhayo weeye maalintii markuu geeriyoodo yacnihii uu la hareen doono fii dilla carshi yowmu laa dilla ilaa dilla. waxaa ka mid ah qofka sadaqada badan ayaa ka mid ah rag iyo dumar wuxuu noqdo. idan dadka aqniyada ah ee ilaahay uu wax siiyey wax yar iyo wax badanbo mashruucan khayriga ah inay ku darsadaan waan boorinaynaa waana ka codsanaynaa way camalka ay nala mushaarakeeyaan ayagoo aakhiradooda iyo adduunkoodaba ilaahay aan oga rajaynayno way liibaan iyo guul aan oga rajaynayno. إن شاء الله تعالى طلب كان عد كستو سوغارو سي يعني احترام يقدر يكون لهان تهي إن أدنا لقوة ذاكتان أرنتا ساسا عدسانينا. بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد وأنجي أو مر لبعض اسكوغو إيماني إنان إذن لو ذاكنا أما والشمين مسلمين أن لو ذاكنا baahi diineed oo ka jirtay dugsi quraan ah oo hadda ka hor aan shaacinay baahidiisa aan shaacinay falilah alxamdu wa nicma waa laga soo jawaabay oo ummad badan oo muslimiin aad iyo aad uga qayb qaatay oo hawshii maartay gacan ka geystay. haddana waxaan u maleynay waa dabayaaqadii oo maartay dhamaystirkii hawshii oo qabi ah unbaa haddana aan jeclaysan inaan muslimiinta usoo bandhigno inay hawshii dhamaystirtahay oo haddana ayaga unbaa haddana la hoosgalaynaa inay nala dhamaystiraan aan rabnaa بإذن الله باري. سداس أي معلمين علماء يقولون إني شيئا وايا والدينتي علمه أرضي مرك إن شاء الله تعالى هوش عس باندونا هنا علماء شيئا إذن شيئا وايا وأنا هوش هذا كار عن إذن صبان لنا أو مسلمين عن صبان لنا وايا تيم بعدنا كوجود جرنا أو هذنا قات ما أرت آخر قاتم خير كده بعد عن هذا المسلمين صبان لنا هنا بإذن الله باري مسلمين يميل والبؤ جوكتان إن شاء الله تعالى خير كعن كود فدي سنة يعني لنا هاي waxaana mahadnaq aad iyo aad u weyn uga celinayna dadka gacan ka geysteen ajri xasanaad aan la koobi karin Allah siiyo umurtooda adduun iyo aakhira Allah u kaamil yeelo umurtooda aakhira mid diineed ba Allah u kaamil yeelo mid adduun iyo mid aakhiraba sidaas muslimiin ay jirtaa. walaalahay waa salaamahaya dadkiina muslimiinta walaalahay waxaan rabnaa dugsi qabyanaga in loo kaalmeeyaan rabnaa annaga dawadii hore waxay idin sheegan u baan garabkooda u baan noo gargaartaan rabnaa oo waxna loo lacagtii wixii aan doonayna nagu garab istaago diinta un waaye. walaalayaal waa siduu sheekha hore inoo sheegay arintaa sheekhu inii sheegay weeyo wax badan oo ziyaada kuma darahayo. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu ku yidhi maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqin. dadkii oo maa cindakum wixii agtiina yanfadu waa tegahaya oo adduunye iyo maala wamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa wixii aana baaqi buu ahaan hayaa. maadaama ilaahay sidaa uu ku yidhi walaalada muslimiinta waxaan ka codsanaynaa arrintii barnaamijka hore aan u gallay
siduu sheekha inii sheegay weeye yaa qabyo naga ah arrintaas in mataqaanaaye ummadda muslimiinta ay nagala qayb qaataan ayaan u baahannahay dadkii wax bixiyey mataqaanaaye wax bixiyey iyo kuwaan wax bixininba inay nagala qayb qaataan baan u baahannahay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa ayad kale wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nabi rumeeye in tansurullah diinta ilahay haddaad u gargaartaan yansur lakum wuu inii gargaarahaya wayuthbit aqdaamakum gomadihiinana waa sugahaya ayuu ku yidhi ayad kale oo qur-aan xadiis kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih adoonka muslimka adoonka kale ee muslimka inta u kaalmeynhaya asagana ilaahay waa u kaalmeynhaya xadiiska ayuu ku yidhi nabigeena caleyhi salaatu wasalaam walaalayaal cod dheer iyo cod gaaban waxaan ku leenahay arrintii khayr allah ina siiyo ilaahay abaalkiina anagu ma gudi karno ilaahay unbaa gudi doono arrinta ayada ahayd barnaamijka ayada ahayd yaa qabyo naga halkaasuuna naga taagan yahay waana isdhaqaajin laanahay haddee marka horeba waxba maan haynin laakiin dad muslimiin ahoo muxsiniin ah ayaa arrintaa dhaqaajiyey waxaanu ka codsanaynaa marka ummaddaas in kuwii wax bixiyey iyo kuwan wax bixinba ay nagala qayb qaataan oo arrintaas ay mataqaanaa aad mataqaanaa arrintaas ay juhdi badan ugu bixiyaan maanta maalin aan ahayn baana mataqaanaa hawshaas mataqaanaa hooskeeda la harsan doonaa lambarku waa eber 7 42 43 8 8 13